halkani waa gunta wararka ku soo dhawaada wararka maanta waa afarta bisha sagaalaad sanada 2019 qodobada aan idin haynana maanta waxa kamid ah haweeney xil sare looga magacaabay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya faahfaahin dheeraad ah oo aan idinkaga hayno haweeneydan loo magacaabay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya xil noocee ayay ka qaban doontaa warkeena ayaad ku daawan doontaan daawadayaal sidoo kale sheekooyinka ama wararkaan idin haynana waxaa kamid ah waqtiga uu furmayo shirka dib u heshiisiinta galmudug oo lagu dhawaaqay isagoo la filayay in maanta dhuusamareeb uu ka furmo sidoo kale waxaan idin haynaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku wajahan magaalada Cabudwa wararka Soomaalida ka baxsan ee aan idin haynana waxaa kamid ah Iiraan oo 2 bilood u qabatay dalalka Yurub iyo sababtoo la shaaciyay intaas waxay hayeen qodobada warkeena ugu dooron halkani waa channelka gunta wararka hadii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar si aad u hesho muuqaaladeena waxaan ku bilaabeynaa haweeney ayaa xil sare looga magacaabay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Xasan Cali Maxamed amar dambe ayaa magacaabay kusimaha agaasimaha wasaaradda difaaca Soomaaliya isagoo u magacaabay qof haween ah markii ugu horeysay Jahan Cabdullaahi Xasan ayaa loo magacaabay kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska wasiirka ayaa Jahan Cabdullaahi Xasan waxa loogu magacaabay in ay noqoto kusimaha agaasimaha wasaaradda difaaca ee Soomaaliya xilkan waa markii ugu horeysay oo qof haweeney ah loo dhiibo shirkii maanta baaqday ee dib u heshiisiinta galmudug ayaa lagu dhawaaqay waqtiga rasmiga ah ee uu furmayo maanta oo Arbaca taariikhduna ku beegan tahay 4 bisha September ayaa qorshuhu ahaa in magaalada Dhuusamareeb uu ka furmo shirka dib u heshiisiinta galmudug hase yeeshee dib u dhac ayaa ku yimid guddiga shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa xaqiijiyay in dib u dhac uu ku yimid shirka qorshuhuna uu maanta ahaa inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb sidoo kale guddiga ayaa sababta ku sheegay dib u dhaca inay tahay sababo farsamo la xiriira awgeed isla markaana uu maalinta biritaa shirka ka furmi doono isla Dhuusamareeb ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo haatan ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu wadaa in uu furo shirka dib u heshiisiinta galmudug oo lagu gol xaarayo dhismaha galmudug oo loo dhan yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu ku wajahan yahay magaalada Cabudwa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa lagu wadaa in uu gaaro magaalada Cabudwa ee gobolka Galgaduud socdaalka ra'iisul wasaaraha ee Cabudwa ayaa waxa ku wehelin doona xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ayaa magaalada Cabudwa saacadaha soo socda la filayaa inuu ku tago safar dhanka dhulka ah waxana halkaas marka uu gaaro la kulmi doona waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka akhbaaraadka dibadda markan hadii aan eegnana Iiraan ayaa muddo 2 bilood waxay u qabatay dalalka Yurub sababtana waa ay shaacisay madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa maanta 2 bilood siiyay dalalka Yurub si ay u badbaadiyaan heshiiskii 2015 lala galay nuclearka dalkiisa Ruuxaani ayaa si kastaba ka digay in Tehran ay diyaarinayso xuduudo kale oo dheeri ah oo ay ku doonayso in heshiiska ay ku waxyeeleyso kaas oo yeelan doona saameyn aan caadi ahayn warkii oo aad kala socoteen gunta wararka waa inaga intaa haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar hana iloobin gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad mahadsanid